السلام عليكم guys waa in salaam dhamaantiin isbuuc wanaagsan isbuuc noqosho wanaagsan Ramadan mubaarak waxaan samayn doonaa videoga sida ahaa weekly forecast oo isbuuc walba aan samayn jirnay een sidoo kale waxaan rabaa inaan ogeysiiyo buuggii ahaa garaas oo ay bixin jirto ah the wave concept principle oo ku saabsan istiraatiijiyadeena iyo sidoo kale casharada YouTube ku yaala advanced-ga ilaa iyo basic ah buuggaas almost hadda wuxuu joogaa qiimo ahaan $25 buu joogaa halkii oo ahaa 45 ilaa iyo 50 ahaa waa sagaalka maalin iidka ka harta insha Allah hadday u baahan tahay nambarada hoose insha Allah kasoo dalban kartaa qaybta description okay haddii aan galno marka weekly forecast-geena haddii aan ku bilacta DXY last week waxa isku keen dambeysay lacagta ka ayoo marayso waxaan ka rajeynaa lacagtan laba option oo ah in new high new low keento iyo sidoo kale new high keento okay arintan new high ka marta waxaa idin sheegay lacagtan inay bis trade tahay oo si sar garayn kartaa ma DXY in la trade garaynayo laakiin lacagaha cagsiga ku ah sida dikad iyo CHF iyo lacagaha ku xiriira AUD USD dollar iyo euro USD waxaas la seel gareynaa okay iyo waxaas la baay gareynaa saas ka wada okay wixii dollar ugu horeeya waa la seel gareynaa qaabkaas ay okay marka DXY hadda maxay samaysay sidoo kale waxa ay ogeysiiyay hadda video ugu laabtaan video ku horeeyay aan soo dhignay last Sunday ana tamay lacagtan loo ka sareyso haygaasna ay ka hooseyso lacagtan insha Allah sug ana tamay hay ka sare marto lacagtan soo seel garay ana tamay loo ka hoos martana lacagtan waxa u fiirisaa in qaab noocan isku xirnaan karto dan lacagta ana tamay halkan tagto insha Allah soo seel garay okay marka isbuucan maxaa sugeynaa isbuucan DXY qabto dub sadda fiiriso ana tamay lacagtan sidaan u socoto soo daadato new high keento mar kale soo laabato new high kala keento tan waxay muujinaysaa insha Allah any time lacagtan diyaar u tahay inay soo dhacdo oo soo omolo inay ka okay marka DXY hadda fiirisid waxa istiraatiijiyada ku qaadana ama dadkeena ardaydeena aan siino kan wuxuu ahaa high mid kale high kale kan wuxuu ku tusinayaa lacagtan aysan awood lahayn ay ku sii socoto okay marka anytime DXY isbuucan waxaan ka rajeynaynaa lacagtan anytime aagaan tagto 104 200 ama 104 400 anytime aagaas tagto DXY insha Allah waxaan ka rajeynaa big dollar ka rajeynaynaa lowgan ilaa lowga insha Allah ka hoos mara minimum dhexdan insha Allah aagaan inuu imaado 103 600 ilaa 103 400 insha Allah in aagaan taabato DXY insha Allah isbuucan uga fadhina okay si qaabka oo isku bedeli karta ma jira haddii aad su'aal isweydiinayso kale ama qasaba insha Allah ustaad waxa sheegtay inay samayso no qasab ma aha waxa sheegay inay samayso okay laakiin waxa qasaba kaliya lacagtan inaan ka aragno wax momentum ama wax isbedel insha Allah inayna tuso okay halka shay isku bedeli karto sida noocaada marka soo lacagta waxa sheegnaa haddii lacagta halkan tagto lacagta si socoto ka waran sida ku ogaan lacagtan si socon karto iyo in kale okay mar walba waxa ku ogaan kartaa lacagta aanay halkan tagto okay lacagta haddii halkan tagto hadda meesha ka rajeynaysa inay ka daadato haddii lacagtan qaab correct ka gasho micnaheeda maxaa waa lacagtan waa sii socon kartaa oo mar kale waa sii socon kartaa okay marka optionka ku ogaanaysa waxa waaye option noocaana before inta is samayn aanay lacagta halkan tagto oo insha Allah waxa adiga ku waafaqaya ama systemka intriga cashareen aan ku qaadatay haddii ay ku aragto insha Allah soo sel gare haddii istaraatiiji kale ay isticmaalaysa insha Allah waxay ku noqon kartaa top down analyze oo lacagtan insha Allah ka rajeynayna insha Allah DXY inay halkaas soo dhacdo okay marka hadaa DXY falaqeynay wax ka dhigan tahay 70 ilaa 60 boqolkiiba suuqa jayis hadda way noo cabiranta okay haddii SDJPY aan ku xijino SDJPY ayada wax ka rajeynaynaa waxa possible ka hadii SDJPY ayada qaabkan isku xirnaan karto waxaan in barsi yahay qaab marka insha Allah in high ka sare mari karto waa big possible ee hadda noo muuqato waxa kale oo inta noo muuqato ah lacagta all the way hadda meesha booska laga ribaado way dhaaftay oo wax lacag kasta waxa qasaba in barsi yahay waxaan uu hadda corrective ay tahay hadda ay corrective in barsigan kale inta ka bilaabmada waxa qasab ku ah kaliya inuu dhaafo highgan qasab kuma inuu hawdu highgan jabiyo okay marka si lacagta ka muuqato hadda USDJPY way jabisay haddii markaa sii socota high extra martana tala big surprise nagu noqomayso oo anytime USDJPY waxaa ka rajeynaa insha Allah ama highga ka sare marto ama meeshii inta correct ka gasho ha soo daroor garayse USDJPY waxa uga fadhinaa insha Allah seel uga fadhinaa okay marka hadda isbuucan maxaa u saadaalinaynaa waxaa u saadaalay qaab noocan lacagtan hadday samayso qaab noocan waa possible lacagta marka la high aad okay ama waxa possible all the way minimum in meelahan gaarto waa possible ama high ka sare marto marka USDJPY wax ka rajeynaa hadday meesha korta naga samayso baygeeda waa possible laakiin seelkeeda insha Allah ilaa 150 200 ilaa 150 400 oo minimum 150 insha Allah agas adiga booska 150 wax ka rajeyna insha Allah USDJPY inay ka daadato okay sida idin sheegana sidoo ku bixi kartaa all the way maadaama ay qaaday positionkii lagu talagalay okay ayada corrective iskaga jirtaa weli wax isbedel ah kama aragno laakiin wax ka rajeyna insha Allah hadda in isbuucan
sii socoto oo marka la hayan ka sar marto dir markaa soo darab gashaa tan maxay ku cadanaysaa marka tan waxay ku cadan weli DXY u baahan tahay wax yar in haya kusii socoto dee lacagahan si USD GBY USD CHF ay u soo dhamaystaan baaga yarka ay ka dhiman okay dee aan ku darno marka USD CAD USD CAD ayada awood saa'id ma laha CAD awoodna xoogaa wana soo roonaanaysaa haddana sidii laga reebay ma samaynayso okay weli awood daraa ka muuqato okay hadda wax ku dhaqaada shaab ama imbalse ku dhaqaaqday sidoo kale cross noqon kara ku dhaqaaqday imbalse kale ku jirtaa qaab noocan ah waa possible one more low agan waa possible sidoo kale waxa possible marka insha Allah lacagta inay laabato agan ay tagtana waa possible kala jirta qaab noocan inay samayso laakiin USD CAD ma qofkan insha Allah okay hadii laakiin qaabkan ay samayso ilaa high ay ka sar marto 1.4 hadday tagto kale waa qaab noocan dhexdan ay ka samayso insha Allah waa qorxoonaa doonta seelkeeda laakiin before halkaas ma qorxo insha Allah marka USD CAD highgaas ilaa iyo lowga inta u dhaxayso insha Allah soo kan soo dhaafto insha Allah waxa socda in barsigii kan socda hadii hayan ka sar martana markaas insha Allah waxa la soo sel garan kara noqon doona okay marka inta waxa uga baxay lacagii dollarka uga baxay haddana aan galna marka lacagaha opposite-ka okay USD euro USD ayada ugu qorxan lacagaha hadda isbuucan uma bushada low wada keento ana teen waxa laga possible ka ah inay lowgan aysan qaadin ilaa iyo 107800 haday dib u taabato possible insha Allah inay all the way u kacdo marka insha Allah xayaa ka sar marto ilaa 109600 109800 insha Allah dib loo taabsiyo okay ama qaab isloon ay ku socoto daba marka uma bush ay ka tagay marka USD euro USD insha Allah isbuucan waxa uga fadhinaa bay uga fadhinaa ilaa aan ka arkeen marka wax isbedel nusuusan karo okay GBCD hadda oo in barta kusoo dhaqaada hadda waxa possible ka insha Allah lacagtan hadda correct inay saa qasho adiga correct marka lacagan kala bay aadayaan ayada possible waxa ka insha Allah inay correct gasho correct kaas wuxuu noqon karaa all the way expanding oo qaab sidan oo noqon kartaa then ay sidaas ku sii kartaa ama marna noqon kartaa okay ciidu diidaysa ma laha ama sidoo kale meesha ay foolxumo ka ahaato wax sidaan ay samaysana waa big possible insha Allah marka GBUSD maadaama dhig soo aan seel ka rabno GBUSD euro USD AUD USD NZD USD ayaan insha Allah ka rajaynaynaa buy waxa ahaaga labana lacag NZD USD iyo AUD USD buyga inuu qurxoonaan ama GBUSD NZD USD iyo AUD USD naga maqan hadda aan ku soo darsano okay AUD USD afartan lacagood waxa ka rajaynaa insha Allah xogaa in isbuucan qurxoonaan ayaga lacagta ugu qurxoon marka doolarka dhan waa kee doolar xogaa ma cadda weli jihadiisa xogaa 50 iska yahay marka euro USD wax hadii la trade garaan euro USD isbuucan baygeeda ayada ugu macquulsan okay wixii kale insha Allah laga yaabo in isniinta ama talaadada bari waa isniin talaadada arbaca iyo khamiis ilaa laga gaaro insha Allah is cadeeyaan laga yaabo laakiin before intaas lacagan kale sii sababtoo inta ka aragtaan lacagtan waa NZD USD waa qaab all the way xawaare ku socotaa lacagta waxay u baahan tahay big corrective u baahan tahay inay soo gasho big corrective-kan waqti dheer u qaadan doonaa haddana mo low ina kada waa waqti kale qaadan doontaa marka NZD USD iyo AUD USD labada usbuuc oo soo socda inay trade yar 1 hour iyo 15 minutes laga hela maahane big trade ama sidaan kala camal la isoo kan oo kala meeshan corrective ahaa trade of the week noo ahada xasuustaan baygaan oo kale ama corrective oo qurxoon oo kale inay sameyso insha Allah ku qaadan doontaa last two insha Allah next 2 weeks insha Allah harjinayna inay corrective ka jiraan labada lacagood NZD USD iyo AUD USD okay marka goal la galna marka goal insha Allah possible waxa ka awaldo hadda inuu wamo low waa possible ama all the way season ku baxna waa possible marka goal all the way waa buy okay corrective ma qurxoon hadda corrective qurxoon kama aragno laakiin waxa la fikiray insha Allah hadda meelahan inta haygaas u qaadin hadduu corrective qurxoon in siiyo tala goal waa sii buy garan marka isbuucan goal waxa ka rajeynaa ama wamo low intuu kana buy soo aado ama all the way sida ku kacay goal insha Allah isbuucan ka rajeynaa buy euro AUD euro NZD okay euro AUD last week meelaha isku keen dambeysay euro NZD labadooda waxa idin sheegay haddii oo NZD USD iyo AUD ay sell almost sell keeni doonaan kuwan all the way buy ay doonaan okay marka waa aragtaan NZD USD AUD USD wax sell maysa keenin all the way sidoo ku baxday tan insha Allah sidoo ku baxday maalmihii isbuuc u dambeeyay insha Allah ay soo correct gareysay marka AUD USD waxa possible ka AUD euro waxa ka wada euro AUD possible hadda waxa ka all the way qaab noocan hadday samayso all the way possible ilaa mar kale insha Allah high test garayso 174 1.74 500 in dib loo taabsiiyo
waa big possible insha allah okay. possible kale way jirtaa oo ah lacagtan in hadda meelaha ay tagto din ay soo drop garaysano karotka weynaysatana waa possible kale noo muuqata si ay mar kale insha allah ay bay ku aado qorshahan awla hore mar usoo samaysay haddii aa idin tuso waa sidaan oo kale okay. inay karotka sidaan u weynaysato kale karotka hadda dhexdan ku wadato kale in sidaan u weynaysato oo kana sidaan u weynaysato mar kale ay seel keento sidaad inta ka aragta marka seela keentay dinay bay soo aad okay. marka waa sidaasna waa possible kale ay samayn karto waa euro AUD hadday sidaa noqoto insha Allah noqdo best trade noqon doontaa ilaa iyo 10R ilaa iyo 8 ilaa iyo 6R insha Allah noo noqon doona insha Allah marka waxaan ka rajaynaa qaab noocaas okay. euro NZD ayadana waa la mid haddii ay karotka weynaysato waxaan ka rajaynaa insha Allah inay mar kale bay aado laakiin before intaana baygan euro NZD waxaa possible ka laada in chance of short term in laga helo oo ah haddii aagan ay dib ugu soo laabato haddii isbuucan aagan dib ugu soo laabato waa possible insha Allah markan bay aado baygaasoo aan figeyn ilaa iyo 1.9 possible haygaas inay si garaysan waa possible laakiin fast trade insha Allah waxa waaye 1.9 insha Allah okay. halkan to halkan okay ama waxaan ku korajeen insha Allah meeqa biib ahaan hadda xisaabino biib ahaan hadda xisaabino waa 250 biib waa enough okay. qofkii qaadanaya waa best trade okay. JBAUD ayada kororta iskaga jirtaa hadday kororta kasoo baxday ayada big kororta kasoo baxday possible liftiga intaa umulow hadday keento ay aagan imaatana ayadana waa macquul baygida okay. waa tasti garayn kartaa insha Allah ilaa mar kale hayga insha Allah inay hayga laga reebo way ka koromartay kulli dactan kugu soo daro garayn kartaa ulda meeshan kugu imaan kartaa laakiin baygan waa macquul waa la qaadan karaa 2.07 ilaa 0.06 insha Allah okay. GBNZD haddaa fiirna ayadana ayada wax ka macquulan mana muuqdaan waxaa ka rajaya insha Allah qaab noocaan haddaa ka imaato aagan hadda imaato mar kale waa buy laakiin GBAUD iyo GBNZD iyo euro AUD marka soo barbardhigo LST euro NZD marka soo barbardhigo waxaa ugu macquulta euro NZD iyo GBAUD waa possible buy good okay. GBY waa yen insha Allah hadda uma loo keenay possible hadda lacagta kororta kasoo meelahan tagto waa possible marka new low kale inay keento ama oldo inay sii socon karto waa possible marka yen dhan ogaa ma qurxano guys okay. GB card ayadana waa mar kale shaa last 2 3 of the week noo ahayd baa inta ka aaday oo nagu soo laabtay break FM nooga saartay hadda waxaan ka rajaynaynaa lacagta in saas ku xiran tahay oo meesha WXY ay ka tahay oo mool anatin lacagta new low keento baygeeda waa possible ilaa ay haygaas okay. GBCHF last week noo sheegay waxa idin sheegay Omolow inay keeni karto meelahan isku keen dambeysay ahoob in ahayd Omolow inay aagan keento dan ay high testiga possible haddana inay mar kale insha Allah lacagtan ay GBCHF inay daro garayn karto oo markay lowgaas ka hoos mari karto waxa hadda insha Allah suugin okay. euro card ayda ma qurxana laakiin lacagta dollarka euro USD ay isku structure yihiin raacda hadda euro USD ay kacayso insha Allah wax ka rajin insha Allah inay mar kale kacdo okay. laakiin wax kale qurxan oo hadda aan samayn karno ama noo muuqdo ma jiraan marka euro card ma qurxana isbuucan kale okay. last week trade kan la 15 minute trade ahaa ku trade TB ku dhacay lacagta wax ka rajeen lacagta inay qaab noocan samayso oo busho waa possible ama all the way lacagtan hadda inay soo garayso qaab noocan aaga inay imaato waa possible si ay mar kale u daahato okay. marka yen waxa muuqata xogaa inuu isbuucan ay u seel aadi doono okay. marka CHF GBY oo dhow hadda kororka ka soo baxday أنا تين لعبتها هاي حد هاي وكسر مرتي possible واحد كاي جي بي سي كCHF برضو إن سيدو كسرته possible أما ومولو هذا كان تنا ومولو هذا كان تنا مركز إن شاء الله possible إن شاء الله هاي من أنت أصبح نقول مركز لايس لعجي يعني قلت لك قلنا يوتيوب ليستيجا دي هذا أساس من تريد أوف ذا ويك العجا ومع قرصنا في حكم ده يورو إنتي دي وأوكي باقي كده يبي وجود أيضا لوانا العجا فجأة إن شاء الله يمكن في ريسكين الدولار لوانا العجا يورو يش دي إنتي يش دي إذا ولي عدين haddana labada lacag waxaan muujinaa insha Allah in fursad baa ay muujinayaan oo laga faa'iideysan karo euro USD waa okay GB cardna waa okay insha Allah okay. marka euro USD GB euro NZD iyo GBAUD iyo GB card okay. afartaas lacagood waxaan u macquulsan insha Allah isbuucan aan arki karno oo fursadana siin kara insha Allah wixii kale gadaal ka imaadana insha Allah waxaan ka rajeynayaa insha Allah inaa aqoonti leedihiin oo aad ka faa'iideysan doontaan okay.
UDC ka warna seelkeeda. Let's see. Chibi waa sharaxay guys. UDCHF. Okay, UDCHF. UDCHF seelkeeda muxuma waa okay. waxaan ka rajeyn insha Allah ilaa haygaas inaa loogan ma ka tagto insha Allah waxaan ka rajeynaa insha Allah haddii aad ku jirto insha Allah ilaa loogan kadib insha Allah ka bax waa possible lacagtan urdu marka inay soo laabato minimum 106 ama hayan ka soo marka waa okay dadka inta in barsa ku haysanaa waxaan korosku noqon doonaa mumo baya u baahannahay aagan ama halkaas insha Allah u baahannahay bidan insha Allah ay lacagtan ay u aado seel marka xagee u baahannahay marka lacagtan ay ku soo laabato ama minimum aaga insha Allah in dib u tabto way for marka in halkan taabato marka in soo kacdo in ay sii kici karto kida insha Allah kici karto okay haddii su'aalka isweydiinayso ah hadda sidii ma kusoo laaban kartaa yes cid u diidaysa ma laha oo dawada sidaan isku xirnaan kartaa oo ay dhan ku tahay kan kiiska hadda kii aad dib u keeni kartaa okay then si ay u dhacdo okay marka all the way AUDCHF high time frame-ka ama wixii for ka sarreeya waa seel insha Allah okay marka hadda halkii insha Allah in loogan ka tirtirayso يوم هاي يوم القاب نوع ان شاء الله اوكي تريف دوغا دا ku celiyo waxaan dhahay euro NZD JB AUD JB card euro USD afartaas lacag insha Allah waxaan dhahay waa possible baygooda oo waxaan taa macquul arki karno dii aan dul maro kale USD qaab noocan isku xirnaan kartaa oo sel waa possible then all the way high ama all the way meesha ka kacdo all the way sa ku kacdo okay waa tan waa tee waa euro USD okay haddii aan euro NZD ku xijiyo euro NZD ku xijiyo haddii hadda uu cawada aaga imaato baagada waa okay laakiin baaga fig ma noqon doono anta aaga imaato insha Allah axris insha Allah waxa kala baxdo okay sababta waxa possible ka ah oo low insha Allah inay keento okay tan waa meeshan sel waa ka dhigi kartaa halkana baagada waa okay labada jees oo askar ka qaadanaysa يعني هان فومي كي isleeda waa seefsan yahay kan seelka ila seefsan okay maadaama in barta ku haysto break aan ku haysto kan bayga ahaan inta lacagtan bay ku socon kartaa lacagta seel ku socon kartaa laakiin kan seelka ah waa kaas ugu macquul okay JB AUD ayadana waxa iga muuqda JB AUD ayadana possible umulow inay keento OB gan oo inta ku jira imaato oo 1 hour ka ah hay 1 hour zone aha so yes good yeah 1 hour zone ka imaato oo mulo zoonka imaato marka bay waxaan ka sarmarto laakiin tan waxa suurtagal ka ah maadaama all the way high gaad ay dhamaystirto qaaday lacagtan all the way sidoo ku socon kartaa yes okay waxaan in barsi yahay laakiin the way ku soo dhaqaada ama the sharp the corrective ay sameynayso waxa wax u baahan marka in high test garay u baahan yahay okay GB card aydan waxa ku haysanaa corrective ku haysanaa okay GB card خلاص انت كويس انا دبليو اكس واي اكس زد انا تمن عت نيو كينتو بايغدا waa okay oo waa soo bay garan kara marka afartaas lacagood after of the week waa afartaas lacag okay JB card bay ila socda okay JBY okay ka JBY possible baygida waa okay possible waaye laakiin for me ani ahaan oo kale ogaa ma ila qoran lacagtan xogaa jaami ila laha ma ila qorxana baygida waa okay haddana yen xogaa wax u hareen baygida waa possible laakiin ani ahaan yen ma ila qorxana insha Allah silver ma update gareeyo macnaha silver lacag kala ku fiirsada ma ahane silver ma falaqeeyo sababta maadaama lacag ay aad iyo aad riski u tahay dhalinyaro badan oo cusubna na daawanayaan silverna u malayn karaan in lacag xoogaa ay lacagaha kale lamid ay tahay silver ma aha lacagaha kale in lamid tahay okay almost 5 jibaar 5 jibaar ka badan tahay tusaale ahaan oo kale haddii aan wax yar tusaale in ka tuso silver wax kale ana wax kale ku samaysta ma ahane silver let me show you silver
okay for example hadda euro hadda waxaan dhahaynaa boqolkii kontonkii biib dhahaynaa kontonkii biib marka aan ku galo 0.01 okay kontonkii biib oo euro USD ah marka aan ku galo 0.01 wuxuu u dhigmaa lacag ahaan $5 u dhigmaa ama haddii SLK $50 konton biib oo uu yahay $5 khasaaraysa micnaheedu waa hadduu $50 $5 faa'iidaysaa okay markaan u nimaano silfardaa soo qabanoo kale hadda silfardaa soo qabanoo kale jida waa $25 waa 0.01 kiisa waa $25 halka lacagaha kale ay ka yihiin $5 oo mise lacagaha kale wuxuu leeyahay lacag $20 oo dheeriya marka dhalinyaro qaar waxaa jiraan oo lotkaan oo 0.1 iska dhahayaan oo kale okay waxay u maleeyaan ayaga markaas hadda inta USD aad soo qabto kale ama lacagaha cada USD soo celiyo hadda ama kasoo qaad gool soo celiyo kale da gool ku fiirsho kale gooli asaga meeshaan kale ka tubiga hal ibra lagu daraa $5 okay yarku qofku muxuu malaynayaa gool ahaan in hadda meeshaan 500 ma ahan guys okay gooli hal ibra lagu daraa markasta okay marka la xisaabinayo marka meeshaan hadda qofku muxuu malaynayaa gooli hadda $5 gool khasaara silfar dhalinyartu muxuu malayaan inuu silfar iyo gool badana ay yihiin kuwa oo isku barays ah okay hadda silfarda soo qabto kale meeshaan aan ka tubi ka dhigo hag $50 ka kan muxuu ku yahay fahmaya guys okay meeshii oo gool ka ah $50 ka wuxuu ku yahay $250 ku yahay marka waa aad tir risk u tahay qofkii aan fahansanayn ama dhalinyaro qofkii weydiinaya hadda sidaan fahansanayn inshallah iska sax okay gool ma ahan silfar ma ahan lacag caadi okay ama lacagaha kale lamid ah marka okay okay intaas waxa waaye wixii aan kugu talagalay hadda insha Allah waxaan samayn doonaa in codka idin furo wixii qofkii su'aal qaba insha Allah weydiin karaa okay codka idin furan yahay qofkii baa hal su'aal insha Allah استاذ اكو سلامي احكي الله وقراد وي والله سوري lacagta la yiraahdo NZD card tel baan ugu jiray lacagta ka waran 1 hour ka correction yar baan helay waasil gareey NCD card yeah fantastic trade ahaa good insha Allah akhirkii hadda insha Allah inuu ATB ku dhacda ku rajayna okay mase 15 minute mase 1 hour AC ga mase 1 hour ha 1 hour ايش ده AC ku qaadso dhima laha insha Allah inkastoo ay leedahay horta lacagahan inka marba waan kala hadlay lacagaha inta ku jiraan guys okay habeenkii waxa lagu dalacaa waxa la dhaho spread lagu dalacaa okay hada la cawd suuq ma ku furmaayo lacagtan ayadoo halkaa marayso kasoo qaad ayadoo halkaa marayso in spread la dalaco hadii la dalaco lacagta inay kaas in isla kaga laga yaabaa lacagtina ay soo laaban inta imaamto lacagta ayaa ka iman isla kaga laga yaabaa marka spread lacagahan kale wax ku xun yihiin spread ku xun yihiin marka insha Allah lacag kasta isticmaalnina lacagta isticmaalaysaan lacag control ha noqdaan okay hadda lacagaha dollarka kale ama lacagta ugu jiro kale sida dollarka kale ama USD ama GBP oo kale ama lacagahan iska caadiga oo kale spread ma jiro one ma dhaafo xagga lacagaha ay 200 ay tagaan marka insha Allah break even ka dhigada ku dhihi lahaana waxa possible ka insha Allah in spread lagu dalo adii laga saaro lacag ma soo laaban laakiin spread-kiya soo weynaaday hadaan for example oo kale halkan oo kale spread inta hadduu soo ekaado laakiin lacagtii charti meesha taagan yahay 8 saac habeenimo marka la gaaro ama 9 saac habeenimo marka la gaarana spread-ki meesha lagu celiyo lacagtan ay sii socoto adigana way ka baxday lacagahan wax faa'iido ah balaha khasaaray leeyihiin gaas laakiin hadda tirada ku jirtid break even aad ka ahayn subaxdii kale break even ka dhig inta laakiin wixii cawado kale ilaa laga gaarayo 10 saac habeenimo wixii ka dambeeya ama xilliga taajidka kale ama xilliga saxuuranaysa oo kale markaas waa break even ka dhig laakiin inta ka horeysa break even kama dhigi kartid okay sababtoo ah way ka saaraysaa macallin mar walba waxa isticmaalaa lacagta ilaa 2 markay gaarto SL ka soo guuriya break even baa sameeyaa ما يسألك إن شاء الله 10 أو شيء كي ويتشران أرجع إن شاء الله أنا يسألك إن شاء الله قاب قررنا كل وقت خانة ما سنت معنا هذا الصدق سوي ويدينا مار أيوة دي تي بي أو دي هذا الشيء كذا قرحان سما تبي أي دي مسه عاد هذا عليه الشيء كذا قرحان تي بي أو يورينز دي يورينز يورنجي دي مين يورينز دي ما دام أنت إن برسان كويس إنه أنا طلعت أنت تكتو
baygeeda waa okay haddaa bay garanaysid laakiin seelkeeda waa inbars maadaama inta inbars fiican aa ku haysatid seelkeeda okay laakiin hadda inta kasta haddana break aada haysatid baygeedana ma xumo seelkeedana ma xumo joobka adi waa choiceka adi waa seelkeeda qurux badan tahay insha allah adig kaa rabti tan matarta ku dhamaan ka dhabaay moogta possible inay hadda sidaan samayso qaab sii socota hadda kabacdi soo laabto adigana lagaa saaro cadaada faa'iida okay seelkaas aan iska qaadanaa maashinta yalla soo dhawo dhalinyarta kale guys wax su-aalo kale ma jiraan u malaynaa insha allah waxaa idin rajeynaa insha allah waqti wanaagsan waxaan isku insha allah wax noo ballana next Sunday marka waxaan idin rajeynaa insha allah bye bye guys habeen wanaagsan video youtube noo soo youtube insha allah insha allah Haya.